السلام عليكم soo dhawaada asxaabay sida magaca kanaalkeena ka muuqata waa iftiinka xogaha xog kasta aan isleeyahay bulshada ay faa'iido u leedahay waxaan isku dayi doonaa inaan soo gudbino TikTok waa calaamad muujinaysa dunida diyaar u tahay soo dhaweynta Dajjal Awar TikTok waa maxay TikTok yaa iska leh maxaa xigi doona TikTok YouTube channel kala Rational Believers 18 xalqadood oo ka diyaariyay Illuminati waa qofkii daaway 18 xalqadood inuu wax badan ka fahmi doono isbedel ku socda dunida TikTok haddaan af Soomaali ka dhigno waa goob cawrada dumarka lagu goobeeyo ama lagu soo bandhigo heesahana lagu xifdiyo TikTok waxa la ururka daasano shayaadiinta caabuda Illuminati qoladan waxaad ku dhex baran doontaa 18 xalqadood Illuminati waxa ku abtirsan dadka ugu caansan dunida oo fanaaniin iyo siyaasiyiin waxay kaliya dadka u ballan qaadayaan ayaa nagu soo biir waxaan ka dhignaa qof caan ah hantina haysta kolkaad ku biirsana kaliya waxaad oran nafteedu waxaan ka iibiyay shaydaan dadkaan ka xusi karna waxa kamid ah Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Gates iyo qaar kale oo fara badan dadkaan taxay qaar badan oo kamid ah qiraal ay sameeyeen waad heli kartaa iyagoo leh nafteeda shaydaan man ka iibiyay su'aaleena haya iskala TikTok iyo halka uu ka tirsadaa jawaabiyo kooban waa kuwaas saddex hadafka loo sameeyay waa maxay dadka ugu followerska badan all social media hodhan waa dumarkana waa halka taagadu ah دجال سيد حديث كيف نعم رسول كوري كعد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه الصبغة بمرقنات فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيثقها رباضا مخافة أن تخرج إليه تدكو بدن الدجال راعد ونوى دمرك تدك فلورسك وهنا ورق ogsoono dunidan alla wax walba asbaab ayuu yeelay waxaan aaminsanahay in TikTok uu qayb ka yahay asbaabaha dadku dhaweynaya in dad badan ay raacaan deception-ka uu la iman doono afar muxuu kaga duwan yahay social media hortiisa jiray TikTok waxa uu social media kale kaga duwan yahay saddex shay oo qiyaana ah qofkii wanaagsanana ka dhigi kara qof xun kow istiwaangelin uma baahnid inaad TikTok ka mid noqoto laba uma baahnid wax request ah inaad dirto si aad u daawato niikada halkaas ka socota saddex markasta aad sweep dhahdo waa uu ku daarayahay muuqaalkii xigay 99% wuxuu ku bilowdaan muusig iyo surxid waana xaqiiqada ka dhex jirta TikTok taasoo ka dhigaysa qofkii wanaagsanaa xitaa haddii uu isdhaafiyo wixii xunin video kasta ugu yaraan 2 ilbiriqsi ka daawaday hal saacadood aad sidaas ku dhaafiso xitaa waxaad arki doontaa adigoo marka dambe la niikinaya haddaad doonto ahow kii ugu taqwada badnaa shaydaan waxa kaliya aan uga badbaadi karna waa inaan ka leexano jidkiisa qaloocan 5 maxaa xigi doona TikTok Allah subhanahu wa ta'ala oo kaliya ayaa ugu hayman doona TikTok kuma jira aaladaha fisqiga lagu ciriirin karo waxaan kula talinayaa qof walba muslim ah hadafkiisu yahay inuu dhawaado Rabbi subhanahu wa ta'ala nafsadiisana wasaqda ka ilaaliyo ka fogaanshiyaha TikTok iyo waxa la midka ahba Facebook iyo WhatsApp danaha shakhsiyadeed way ku filayeen haddaan social media laga dhiganin shaqo barnaamijkeena waxa soo diyaariyay Ahmed Salaad waxa tafatiray codeyna عاد فتح جامع فضلا فيديو وانا دادك لايك صار عداد نقول عصبتين ناس وسكرايب صار او نقول صبير ونوفر حد والسلام عليكم